بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وعمهد له إله سبحانه وتعالى وما أنت نقول كل مي حرونتا سبورتيغا حديقها iyo wargeyska Somali Canadian Times ee magaalada Toronto. Intaas kadib waxaan mahad balaaran oo soo koobi karin soo jeedinayaa Mr. Buzuri oo shaqo aan la soo koobi karin u haya jaaliyadda Soomaaliyeed ee Canada, gaar ahaan sportiga iyo wacyigelinta caafimaad kan bulsho iyo wargeyska codka dheer ee uu soo saaro. intaas kadib aniga oo ka jawaabaya su-aashii uu aad i weydiisay ee ahayd in aan ka hadlo taariikh nololeedkayga sportis iyo garsoornimo ee magaalada Toronto ama waddanka Canada. marka hore magacayga waxaa la yidhaha Bashiir Maxamed Xuseen Bashiir Ibey. waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho. dugsigayga hoose iyo kan dhexe waxaan ku dhamaystay dugsiga hoose dhexe ee Raagoogaas magaalada Muqdisho. dugsigayga sare waxaan ku qaatay isla dugsigaas Raagoogaas iyo dugsiga sare ee Xamar. waxbarashadayda jaamacadeedna waxay ahayd kuliyadda waxbarashada Lafoole. shaqadaydii qaranka waxaan kusoo qaatay gobolka Jubbada Hoose, magaalo madaxiisa Kismaayo, oo aan ahaa gurmadkii ugu horreeyay halkaas, oo aan macallinka ahaa dugsiga sare ee Ganaane, isla markaana aan kubadda cagta u ciyaarayay warshad kooxda heerka koowaad ee kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo warshadda hilibka. intaa kadib waxaan usoo hayaanay ama usoo aadnay oo usoo qaxnay dadka intiisa badan qurbaha. kadib safaro dhaadheer ugu dambeyntii waxaan saldhig noo noqotay North America, waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. waxaan deganahay magaalada Toronto, halkaas oo aan la deganahay jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u weyn, waxtar weynna leh, gacnahana is haysata. waxaan la deganahay reerkayga Miski Cumar Axmed Fooley iyo 6 caruura oo aan la joogo magaalada Toronto, oo kala ah Maxamed Bashiir, Zakariya Bashiir, Xamdi Bashiir, Salmaan Bashiir, Muntasar Bashiir iyo Xudayfa. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. sida walaalka aan su-aashii ugu weydiiyey oo ahayd taariikhdayda involvementiga sportiga magaalada Toronto, kadib 2003gii markaan xoogaa arkay inaan kubadda cagta ka culusaaday, si aan sportiga uga bixin waxaan damcay inaan aan bal ku dhex jiro, laakiin qolooyin baa iga codsaday in xiriirka garsoorka magaalada Toronto aan la shaqeeyo si aan
qayb uga noqdo sportiga, isla markaana aan community-ga role model loogu noqdo si dad badan oo Soomaaliya talented ah ay ugu daysadaan. Iyagaana ugu dhiirigeliyey in maadaama aan ahaa nin markaas active ah ay yidhaahdeen waxaan kaa codsanaynaa inaad bal kaalinkan si aan u dheelitirno aada buuxiso. saas darteed waxaan aaday school, waxaan noqday garsoore ka mid ah garsoorayaasha kubadda cagta waddanka Canada, gobolka Ontario, isla markaana magaalada Toronto xubinka ah. waxaa jiray dhowr ciyaarood oo ama tartamo badan oo hadday noqon lahayd magaalada gudaheeda ama dibadda ama waddanka dibaddiisaba ah lagu qabtay oo la ii magacaabay inaan mas-uul uga noqdo waddanka ama jaaliyadda. taasna waa ilaahay mahadiis. haddii ay noqon lahayd Maraykanka ama waddamo kale oo ka mid ah North America iyo xitaa South America oo courses iyo wax aan u wada aadno. marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinayaa walaalkay Busuri oo fursaddan na siiyey iyo dadaalka oo uu hayo jaaliyadda. aad baan ugu faraxsanahay. bal dadaalkaaga halkaaga kasii wad. dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan iyo waqti walbo ay u tahayna waxaan idin leeyahay oo idinkula dardaarmayaa cabsida Ilaahay ha lagu dadaalo. ina akramakum cinda Allaahi atqaakum. waxaan xusuusinayaa naftayda iyo naftiinaba waxaan idin jecel lahaa Ilaahay wajigiis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.